إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu wax yar ka oran doonaa alfawaa'id fi istimaac alqur'aan, faa'iidooyinka ku jira qur'aankan kariimka ah ee Allah inoo barakeeyo aynu dhageysanayno. waa kalaamu rabbi alciza. waxaa fawaa'idkaasi ay leeyihiin qaar cilmiga iyo qaar caqliga iyo qaar naxariista intaba. markaynu dhinaca diinteena ka nimaadno waxa ay ka markhaati kacayaan ummadaha dadka diraasada ku sameeya iyo qolada cilmu nafsiga ee qofka bani aadamka baaritaan ku sameeya. qofku markuu qur-aanka dhageysanayay iyo markuu hadallada kala dhageysanayo aada u kala duwan yahay. markuu qur-aanka kariimkaa dhageysanayo qalab haddii lagu xidhay كمبيوتر أو قفك مسكحدي سأجا وحاو كرني بيلين وحلا يقان التركيز مسكحدي سو حاو كرنيه إن يسوتشيد كررسته مسكحد عسية أود وحي عمل له شيء جيو أما يبغليسه أما يحسوسنا يسو الضعيف نمدي أي كبايس دقيسي القرآن كاي دقيستي درادي oo qofku wixii loo sheegay ama wuxuu isagu sheegay uu biya dhigayo oo aanu safmar ku ahayn aqliyadiisi waa weynaanaysa bay ka dhigantay. waxa labaad ay sheegaan inuu qofka ka fududaanayo waxa loo yaqaano الضغط العصبي أو الشعور السلبي. qofku dareenkiisan kacsan naxdin tale warwar kale aan qofka u fiicnayna didmada ku jirto ka biya quraanka qofka ilaahay ba qalbigiisa abuuray maskaxdiisa quraankana u dooray. waa arin labaad. arinta saddexaad ka sii dhalataa waxa weeyaan bay yiraahdeen an yashcura ar-raaxata wa sacaada nafsiyya, inuu qofkii markaa dareemo raaxo iyo nasasho iyo nafis buu qofkii markaa dareemaya kolkii hore aanu haynin. waxa afraadoo ta ka sii dhalanaysaana ay noqonaysaa inuu xoog iyo awood yeesho shayga loo yaqaano aljihaaz almanaaci, awooddiisa shirka difaaca iyo unugyada difaaca. markaa waa inaad rumaysataa weeye macnaheedu inuu corona wax ka tarayo dhageysiga qur-aanka. halkaad ahayd masaajidka corona laga qaadaya waa laga cararayaa, isagii baa wax kaa tarayaba. waayo awooddii difaacu kolkay kor u kacday qofka dee dadka had iyo jeer cudurradan u nuguli waa dadka awooddooda difaacu ay hoos u taabo. oo sacaadada iyo farxadda qofku mar kastay badato sida macruufka ee musallamka ah qofka difaaciisu u kordhaa. qofba qofku ka habisan yahay ka nafisan yahay. adduun kasta ha haysto qof kasta oo warwarkiisa iyo naxdintiisa iyo fikirkiisu badan yahay jihaaskiisa difaac hoos buu dhacaa. saadaradeed baa dad maalqabeena ama awood dhaqaale haysta iyo mid cilmi faqiirka ku daafada iska dhex fadhiya ka difaac wanaagsan yahay law ka raaxo badan yahay. afarta arrimood markay israacaan waxa ka sii dhashay leeyihiin inuu siyaado shayga loo yaqaano inuu qofkii noqdo التفاعل الاجتماعي. waxa kordhaya التفاعل الاجتماعي bulshaawinimadiisa kordhaysa qofka markaa wuxuu noqonayaa qof dadka hadalkooda u adkaysta iyaga la nool wax maamuli kara bulshadii iyo usradiisa cid walba u dul qaadanaya. taana waxaynu ka arkaynaa muallinka quraanka dhiga 30 qof oo qaylinaya u adkaysanaya oo 30 kuba wada akhriyayaan mar kaliya. 30 aan quraan akhriyin haddaad isdhex taagto horay baad ka waalanba ama waad ka carariba. waxaan garanayaa muallin loo dhigi jiray berigii hore quraanka 30 ka ardayba way wada qaylinayaan. kaasi qayb subac buu ku jiraa, kaa kale wuu yeersanayaa, kan kale wuu dareerinayaa, mid walba wuu sheegayaa, mid walba kaana wuu maqlayaa, kaana wuu maqlayaa, kaana wuu saxayaa, kaana wuu saxayaa. wax idhiiriya kuma qabo, intaba waa ku faraxsan yahay. arrimahaas oo dhan waxa ay ka markhaati kacayaan dhageysiga quraanka sida imika aynu u dhageysanayno inuu dawada qalbiga iyo nolosha iyo nafta yahay.
sidaa daraaddeed ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu faray qofku markuu qur-aanka akhriyayo inuu cod wanaagsan ku akhriyo oo kalaamkii ilaahay ee macaanaad dejinta dadka ku samayn lahaa cod xunoo dadka ka firdhiya aanu ku akhriin man lam yataganna bilqur'aani falaysa mina qofkaan qur-aanka ku luuqaynina si wanaagsan u akhriin annaga naga mid maaha buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka waa inuu qof mujawida yahay oo qurxinaya qur-aanka markuu akhriyayo ayaa loo dooraya sidoo kale qof cod wanaagsan sidoo kale qof si fiican u xafidsan ya-umu lqowma aqra'uhum likitaabi illaahi tacaala dadka meel isugu yimi waxaa imaamu noqonaya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka ugu qaarisan kii ugu xifdiga wanaagsanaa ee ugu codka wanaagsanaa ee ugu tajwiidka fiicnaa qur-aankii markaa qofkii dadkii wuu sii jeclaysiinaya marka dadka a'immada had iyo jeer ummadda imaamu noqonaya in arrimaha lagu xulo weeye oo sidaynu imika u xulnay iyo ku buuxiyo waa ila xaafadiya waxaynu ka dayno ilaa alaab qaaliya imika haddii loo dhiibo nin suuqgeyntiisa xuntee ka war dee wuu ka kala erayayaa marmakiibaa alaabtii haya inaa kaxeeya waa meelaha kale aynu ka iibsani arrintaasina waxay ka dawo tahay waxyaabaha laga markhaati kacay waa arrimaha iska muuqanaya ee qofka jidhkiisa iyo naftiisa wax u kordhinaya marka la eego kuwa ruuxda iyo diiniga ah qur-aanka kariimka akhrinta aynu akhriyaynaa dhegaysiga aynu dhegaysanayna qaariga hadda kama hadlayno waa mustamiciintii sideennan oo kale waxay kordhinaysaa khushuuc khushuucduna waxa weeye cabsi iyo jacayl isku jira ilaahay waanaynu ka cabsanaynaa waanaynu ku jecellahay cid walba makhluuqaadka laga cabsado laguma jeclaada waa laga cararaa cidda bani aadamka aad ka cabsanayso dee waa dacabta waad ka cararaysa laakiin ilaahay inaga oo jecel ayaynu haddana ka cabsanaynaa marka khushuucdaasuu dhegaysigani kuu kordhinaya inama almuuminuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun waxaa kuu siyaadaya iimaan iyo khushuuc dhegaysigan qur-aanka kariimkaa aynu dhegaysanayno ma salaada aan ku dhegaysanna ama markaanay salaadaba ahaynbe waa tajmiic lilmalaa'ika malaa'igta inagu soo ururaysa waxaynu ka dhiganayno caalamka sare la noolahay oynu dallacnay oynu darajownay waa ka rasuulku xusaya salى اllahu عalيه waslm kitaabka ilaahay meesha lagu daraasaynayo lagu akhriyayo naxariisina way ku soo degtaa deganaanshaha ku soo dega malaa'igtuna way ku soo xoomaan oo way ku soo ururayaan waxyigaa wanaagsana lahaye iyagoo jeclaysanaya kitaabka dhegaysigiisu waa sababu lhidaaya inuu qofku hanuuno hanuunka wax la helana hanuunkaa u qiimo badan sababu u yeena kalaamka ilaahay dhegaysanaysa sidaa daraaddeed baa ilaahay uuna faray waidaa quri'a alqur'aanu faاstamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun waa naxariis iyo hanuun si aa u hanuuntaan oo isla markaana naxariis u heshaan aladiina yatabicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah waa dadka dhegaysanaya hadalka laakiin kiisa wanaagga badan bay raacaya culimada waxay ku fasiraan waa qur-aanka kariimka ah ulaa'ika hum lmuhtaduun kuwaasaa hanuunsan baa ilahay ui marka hanuunkiina waa laga helay naxariistiina waa laga helay dhegaysiga qur-aanku waxuma taro oo keliya qofka muuminka ah qofka gaalkaana waxbuu u taraya qofka gaalka ee kalaamka ilaahay dhegaysta yuahir wuu saameynaya sababna wuxuu noqonaya inuu islaamo bukhaari waxaa ku sugan qiso uu ka waramayo asxaabigii la odhan jiray jubayr ibnu mudcim intii aanan islaamin baan madiine tego waxaan dhegaystay buuhi nebi maxamed oo salaad maqrib ku akhriyay suuradda la ydhaha suuratu duur aayadaan dhegaystay buuhi aad u cajaa'ib badan am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu الsamaawaati wاlarda bal laa yuuqinuun ilaahay oo addoommaha su-aalaha usoo dhigaya wakaada qalbii yatiir siduu qur-aanku ii saameeyey markaan dhegaystay iyadoo codkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku baxaya macaanaa qalbigaygaa duuli gaadhay buui sababna waxay u noqotay inaan hanuuno oo haddaanay qur-aanka dhegaysigiisu qofka waxu tarayn muxuu ilaahay yidhi gaalku ha u dhegaysto wain axadu min almushrikiina اstajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah
dalika biannahum qowm laa yaclamuun mid gaalada ka mid hadduu nebi maxamedo kuu yimaada buu ilaahay magan sii si uu dhegaysto kalaamka ilaahay waa jaahiliina si ay aqoon uga helaan oo caqligooda iyo cilmigooduba u kordho u islaamo sida asxaabiga wakhtigaa hore dhegaysta ugu islaamay oo kale iska dhaaf insigoo dhegaysiga qur-aanku jinku anfacay iyo makhluuqa hoose ee laga cawdo waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu falamaa wallow ilaa qowmihim فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا إلى آخر الآيات وجنكي oo dhageystay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo quraanka akhriyay markii way islaameen qalbigoodii buu qabtay quraanka ducaadna way isu rogeen inay markiiba degdeg u jawaabaan oo ficil ay galiyaan markay quraanka oo anfacay ay dhageysteen marka kitaabkan ilaahay wuxuu soo dajiyay lihidaayati aljinni wal ins arrimaha kale oo dhamina way soo hoosgalayaan iska daa wax kale haddaad seexan weydo qur-aanka u dhegayso laakiin aad ku seexati ha u dhegaysanina inaad ku hanuunto iyo xigmaddii loo soo dejiyey u dhegayso haddaad istidhaahdo dawada soo jeedka ka dhigo oo qasadkaagu sidaa u gaaban yahay sax maaha markaad kalaamka ilaahay dhagaha gashateed ku seexatay intood akhrido araqa iyo waxa kaa bi'i doona qaadirada iyo dubaabkuba way kaa carari doonaan dadka uu hayo weeyaan cid walba ma hayee sidaa daraaddeed baynu leenahay ilaahay subxaanahu watacaala dhegaysiga kalaamkiisa aynu dhegaysanayna ilaahay waa inagu daweynayaa oo waynu ugu tawasulaynaa cibaadada ah inuu cudurada inaga ilaaliyo waxaa kale aynu ilaahay ugu tawasulaynaa ugu dhowaanaynaa ducada aynu baryayno rabadaanta dhexdeeda oo ilaahay iyadana cudurada inaga fogeynaya marka cibaadada ha laga cararo oo keliya xal maaha laakiin xuluushaas oo dhan baaba ku jiraba mashaakilka iyo musiibada ilaahay uu naga daweynayo iyadoo sababahana kollayba loo baahan yahay isilaalinta intaasaan kusoo koobi lahaa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu